Assalaamu calaykum. U noolaanshaha mar walba inaad qanacso dadka kale, ilaalinta dareen qof kale. Ma waxaad u nooshahay inaad qanacso dadka kale? Ma waxaad u nooshahay inaad mar walba qaadato fikrada dadka kale? Waxaad tahay shaqsi leh fikra iyo go'aano kala duwan, kalsooni sii naftaada si ay u gaarto mowqifka ay ka leedahay nolosha. Ma ogtahay guuldarradu inay tahay guulo badan oo soo socda furahooda? Ma ogtahay dadka xaqiijiyay ee rumeeyay riyooyinkooda in ay la kulmeen guuldarro taasoo sabab u noqotay guulaha maanta? 24 hours because you're about to be broke for the rest of your life. And that's all I need you to do for me. I can tell you all about your life if you just write down your 24-hour schedule for me and you let me look at it. I can tell you where you're going to be in 5 years. I can tell you where you're going to be in 10 years. I can tell you where you're going to be in 20 years if you keep that schedule. Waa macquul guushan aad raadinayso in ay taalo lugahaaga hoostooda. Noloshu way socon, maalin walba waxaad la kulmi caqabad ka duwan caqabadihii hore. Ha isku dhiibin guuldarradaada ee isku dhiib guushaada. Ha ka cabsan guuldarradaada ee dhiirigeli naftaada. Ha niyad jabin, hana ka quusan guushaada. Ka dheero qoomamaynta, waayo waxay dishaa hadafka iyo himilada aad ka leedahay noloshaada. Kalsooni buuxda ku qab noloshaada, qofna hoos kuma dhigi karo ilaa adiga mooyaane. Samayso waqti aad ku raaligeliso naftaada, una sheeg in ay tahay mid wanaagsan oo qabsan karta wax walba oo wanaagsan. Haddaba daawade, hantida ugu qaalisan uu Eebbayna siiyey waa waqtiga. Ahaan maysid sida maanta aad tahay, yeelanna maysid wejiga aad maanta leedahay. Haddaba daawade, waxaan kaaga tegayaa waqtigaaga ilaasho.